maamulka Puntland ayaa ka digay xanuunka Ebola. wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan ayaa xafiiskiisa ku qabtay shir saxaafadeed uu kaga digay qatarta ka imaan karta xanuunka Ebola oo dhawaan kiiskiisa laga helay dalka Uganda. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Alxamdulillahi Rabbil Caalamiin. Sida aad la socotaan ama aad ka maqasheen warbaahinta caalamka waxaa dhawaan ka dilaacay dalka Uganda xanuunka loo yaqaano Ebola oo uu keeno virus. xanuunkaas ma aha markii ugu horeysay oo ka dilaaco dunida gaar ahaan qaaradda Afrika, laakiin muddo ka bacdi ayuu dib u dilaacay xanuunkani oo ka dilaacay wadanka Uganda. xanuunkaasi sida aad la socotaan waa xanuun khatar ah oo keena dhimasho badan dadka uu ku dhaco. calaamadihiisana dabcan waxa ka mid ah qandho fara badan iyo in dadku ay dhiig baxaan ama gudaha u dhiig baxaan ama dibadda u dhiig baxaan, madax xanuun fara badan, matag iyo wixii la mid ah. xanuunka isaga ah waa la kala qaadaa dabcan, waxaana lagu kala qaadaa taabashada ama contactiga qofku uu taabto ama dheecaanku ay isgaaraan labada qof si toos ah isu gaaraan ayaa lagu kala qaadaa, si ka duwan xoogaa sidii COVID-19 oo isaga hawada lagu kala qaadayay. marka waxaa loo baahan yahay runtii taxadir in laga muujiyo. saan la soconnaba dad fara badan oo arday iyo ganacsato iyo dad kale shacabiba waa ku nool yihiin oo Soomaaliyeed wadanka Uganda, kuwa badan oo kamidana waa reer Puntland. marka waxaa loo baahan yahay in dadkaasi ay ka feejignaadaan meesha ay ku nool yihiin iyo sida ugu noolaan lahaayeen iyo sida uga taxadiri lahaayeen xanuunkaasi inay qaadaan, iyo waliba siday ugu baraarugsanaan lahaayeen inaan xanuunkaasi u soo dhoofin ama u soo gudbin Puntland. waxaan ku baraarujinayaa ama aan ku boorinayaa dadka reer Puntland ee ku nool Uganda in qof kasta oo calaamadaha isaga shakiya xanuunka Ebola aanu soo dhoofin uu iska joogo halkaas ilaa inta xaaladiisa caafimaad la hubinayo, oo haddii uu qabana laga daweynayo, haddii kalena la hubinayo inaanu xanuunkaas aanu qabin. taasi waxay keenaysaa in la yareeyo fiditaanka xanuunka iyo waliba in loo soo fidiyo Puntland iyo Soomaaliyaba. taasaan ku boorinayaa dadka reer Puntland, waxaan ku boorinayaa iyagana inay feejignaadaan. haddeer waxaanu joognaa stage taxadir, inaynu taxadirro unbaa muhiima. haddii xaaladdu isbedeshana dabcan tallaabooyinka ku habboon ee munaasibka ah ayaynu xukuumad ahaan qaadi doonaa haddii la haydmo. intaasi waa baraarujinta aan ku baraarujinayo dadku inay ka taxadiraan oo ayna ogaadaan xanuunkaasi inuu jiro oo wadamada dariska ah ee geeska Afrika bariga Afrika uu ka jiro xanuunkaasi. Dr. Jaamac Faarax Xasan ayaa sidoo kale ka tacsiyay geerida naxdinta leh ee ku timid Allah u naxariistay wasiirka caafimaadka Hirshabelle Dr. Zakariya Hure oo qarax shalay ka dhacay Beledweyne ku geeriyooday. tacsi aan u diro dadkii shalay ku geeriyooday qaraxii ka dhacay magaalada Beledweyne. gaar ahaan waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu tacsiyadeeyo wasiirkii caafimaadka ee Hirshabelle Dr. Zakariya Hure oo ku geeriyooday qaraxaas. waxaan Ilaahay uga baryayaa in jannadii firdawsa Ilaahay geeyo, samiri iimaanna uu ka siiyo ehelkiisii iyo dadkiisii. runtii wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo aad u firfircoon oo mutacallin ah oo anigu muddadii aan aqaanay ee aan wada shaqaynay runtii igu reebay xusuus gaar ah ayuu ahaa. waan uga tacsiyadeynayaa dadka Soomaaliyeed oo dhan, isaga iyo dadkii la dhintay kula dhintay goobtaasba. waxaan kala ognahay in wasiirkii ka horeeyay isaga laftiisu qarax ka dhacay Jowhar uu dhaawac ka soo gaaray. waa wasiirkii caafimaadka ee Hirshabelle ee wasiir Zakariya ka horeeyay, isagana dhaawaciisii uu weli saameyn ku leeyahay. isagana waxaan u rajaynayaa inuu Ilaah u bogadhayo oo caafimaado.